aynu wada garanayno cabdiweli maxamed cali gaas iyo ninka madaxweyne ku-xigeenka iyo ninka ra-iisul baarlamaanka inta waxa weeye waa niman aad iyo aad loo aan odhan karno waxbay ka bedelayaan khaasatan puntlandtii kala tagtay iyo wax kasoo celin karaan annagu shaksi ma jecelin laakiin waxaanu jecel lahay puntland oo mid ah oo xuduudaheedii iyo gobolladii iyo kulli iswada haysata oo ummadda soomaaliyeedna sidaa mataqaanaa ay isugu arrintaasaan soo dhaweyn. bismillahi raxmaani raxiim aad bay u mahadsantahay Somali Channel iyo dhalinyarada naga duubeysa warka waa salaamaya marka hore Somali Channel ma waa kalsan marka hore imaan tahay kuma jiro kalsan marka hore waxaan weynayaa dowladda cusub isbedelka dowladda Puntland ama dhalinyarada qabsaday iyadoo dowladii horena aysan shaqadeedu liidin meel fiicanna ay gaarsiisay hambalyo leenahay isbedelka cusub ummadda Soomaaliyeed guul usoo weysay iyo dhammaan dadka kuwa wax tirsanaya iyo kuwa aan wax tirsanayn. السلام عليكم. iyo isbeddelka weyn oo ka dhacay Puntland shalow guul khayr oo la soo deg ayaanu leenahay waanu aad iyo aad baan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo classmate-keydii ahaa weliba aan u hambalyeynaya. marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaa uu sheegay wariyuhu waxaan ahay afhayeenka Puntland ee bariga Saudi Arabia. waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdilxakiim cabdilaahi xaaji cumar iyo ninka ra-iisul baarlamaanka siciid faarax shire. waxaan leeyahay hambalyo. waxaan kaloo u hambalyeynayaa madaxdii ka horeysay ee soo gaarsiisay Puntland doorashadan nabadgelyada u dhacday iyo dimuqraadiyadda. waxaan leeyahay waa laydinku xusuusan doonaa qoladan dambe waxaanu insha Allah ka rajaynaynaa sidaas oo kale inay soo gaarsiiyaan oo ay maaragtay doorashada soo gaarsiiyaan. cabdiweli waxaan u dirayaa fariin gaar ah oo ku leeyahay madaxweyne annagoo ku hambalyeynayna khudbadii shalay aad jeedisay qof kastoo Puntland dhiiggiisa dhaqaajisay. waxaan kaa codsanaynaa haddaadan wada dhamaystirin inaad nus ka mida qabato taasi Puntland waqtiga ugu socdayna taariikhda ku noqonaysaa. waan u hambalyeynaya shacabka reer Puntland oo dhan iyo maxay hay'adaha bulshada hadda qabsatayba marka ilaahay wuxuu ugu rajeynayaa xilka in ilaahay uu qadariyo qamaraha qaadeen ay galeen ay ka soo baxaan marka hambalyaan leeyahay reer Puntland oo dhan magaalada barwaaqo bashir ku jeeyaa insha Allah. magacaygu waa Axmed Dowle. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa doorashadii ka dhacday maanta Puntland iyo gulihii ay gaadheen maanta electionkii halkaa ka dhacay. waxaa kale oo aan u tacsiinayaa nimankii laga helay waa tacsiin aad ugu farxo guushii ay ku guulaysan waayeen nimankii Faroole iyo Ina Cali Shire iyo Axmed Garaash nimankii heeryadooda cunayaasha ahaa ee isu soo taagay shirka inay Puntland la midoobaan oo shacabkay shalay cuneen ee gowgowdhaceen doonaya inay maamul haddana u qabtaan oo iyagii magacooda wax ku doontaan. nimankaa tacsi aan ku farxo dhinacna tacsi iyaga uga ah ayaan iyana u dirayaa. sidaasaan leeyahay shacabka reer Puntland iyo reer Garowe iyo reer Puntland oo u hambalyeynaya. فكركaaga adigu qaas ku yahay TV karsan ama qaba aan barnaamij ma tahay magacayga cabdi ismaaciil ayaa waxaan salaamayaa sida waxaan meesha ma yaro shidaan ra'yiga soo meesha ma yaro hadday
cabdixakiim cabdilaahi xaaji cumar sidoo kale ra-iisul baarlamaanka markaa magacayga bismillahi raxmaan raxiim magacayga aadan jaamac aadan xaaji maxamuud waan soo dhaweynaynaa doorashada ka dhacday puntland maamulka puntland isbedelka ka dhacay waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay cabdiweli iyo madaxweynaha waan soo dhaweynaynaa madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leenahay wax laa wixii magaalada haddeer tala wixii shacabka u ballan qaadeen haddaad ka dhamaysaan xoogana waan idin raacaynaa haddeerna waan idin taageernay magacayga maxamed jaac xuus waxaan hambaleynayaa doorashadii ka dhacday maanta puntland lagu doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay hambaliyo ilaahayna ha idinla garab garo xilkaa weyn ee culusha aad qaadeen puntland waxaa ka maqan shacab iyo dhul ha odhanin hadda qoraan qaadayna horta waa in shacabkii la helaa shacabka marka la helo waa dhul la heli karaa dad shacab dhulkiisii maqan yahay dadkiisii maqan yahay waanu keenaynaa waanu xoreynaa waa laga fiican yahay marka waxaanu kula talinaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka iyo waxa soo socday wax sii socda inay isku taxallujiyaan inay dadkii raadiyaan aad iyo aad baad maanta bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhahdaa cabdirashiid cismaan aadan beercaddaan ku magac dheerahay waxaan ahay muwaadin reer khaatuma maamulka khaatumana yaan ku hadlaya afkiisa iyo shacabkiisa ma yahay puntland laakiin waxaan doonayaa inay wixii ay isku sharaxeen dhulka reer khaatuma ka maqan bay isku sharaxeen annagu waxaanu ka codsanaynaa hal codsi hadday yihiin reer puntland waxaanu ka codsanaynaa xabadihii dhabarkana lagala dhacayay inaan kuwanna dhabarkana lagala dhacay oo aan naloo soo adeegsan sidii kuwii hore ee loo soo adeegsaday midkaasaanu codsanaynaa haddaan nahay reer khaatumo waanu idiin hambalyaynaa guul baanu leenahay cidaad u dirsanaysaa nirigeeda محمود محمد واللي وين بكون قاعد هنا هاي أنا هاي مواد ذا خاطبة ما هاي وحاهم بليان يا بلدان وينها مثل كوينكا كسلبان ربانكا على تشيلو تشوغا لكن وحي وحقات كاجي أنا جواي ما لا يحب دول أكبر لقات السلام عليكم. aad baad maanta والله لقينا مقعد السلام عليكم أنا وحنا عبد أحمد نور عدنا عبد أحمد نور وحنا مواطن خاتوم ستيت أوف سوماليا شعب كبيرة أيانا هاي وحنوهم بليين يجوش أي ولا له يقارين هي الديمقراطية تصير كل عادي وحنو دين بليين ونعكسن أو وارتا تدكود يدلكود أنا أنفعه أنا قال أنا أنفعه إن شاء الله. magacayga waxaa la ismaan musaar raade waxaana muwaadin khaalima waxaan u hambalyeynaya doorashada ka dhacay sida xaq u dhacday magaalada Garowe magaal madaxda waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa guddiga khilaafaadka iyo ku isku shaqeeyay oo amniga sugay kuwana mahad gaar u celinayaa